kulanti wacan oo wanaagsan daawaday halkan waa madasha wararka qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya dagaal culus oo u dhaxeeya Cafarta iyo Soomaalida oo mar kale ka bilowday galbeedka gobolka City cashir culus oo loo dhigay Cafarta ciidankii ugu badnaa oo saraakiil ay ku jiraan oo Cafarta laga qabtay dhul barlaaran oo markaasi Soomaalida ay u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan gaadiid la gubay iyo guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ayeen markaasi idin soo gudbin doonaa Kabolo helay qadaran tabamara xoori xaruntii degmada Ceydida iyo nawaaxiga dan la helay oo dhan ayay gacanta u galeen ciidanka Soomaalida Cafartii oo halkaasi laga xureeyay guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkii halkaasi ka dhacay ayaan idin soo gudbin doonaa wararka dhanka cantuufa ka imaanayana kama marna daawade oo warka ayaynu ku daawan doonaa haddii rabbi uu ka raali noqdo qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordhay inta warkayaga aynu ku guda jirno ayaan si wada jir ah u daawan doonaa hase ahaatee aan ku xasuusiya haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarta gambaleelka aad furto muuqaalkeena oo aad laag saarta wuxuu naga caawin doonaa saaxiibo fara badan oo sidaada oo kale inay helaan wararkii ugu dambeeyey qaybta hoose ee commentiga noogu reeb haddii aad ku faraxsan tahay guulaha ciidanka Soomaali galbeed ay ka gaarayaan Cafarta duulaanka ku soo qaaday daawade waynu idin soo gudbin doonaa oo oorahdaada halkaas noogu soo reeb qodobadaas ayaan daawan doonaa si wada jir ah ugu horeyn warkayaga aynu ku bilownay dagaal u dhaxeeya Soomaalida iyo Cafarta mar kale waxa uu ka bilowday galbeedka gobolka City wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya galbeedka gobolka City waxa ay ku soo waramayaan dagaal qaraar oo halkaasi ka dhacay kadib in ciidanka Cafarta oo duulaan soo qaaday in cashir lama ilaabaan ah loo dhigay isla markaasna ciidanka Soomaali galbeed oo aad u abaabulan ay markaasi ka hortageen Cafartu waxay doonayeen in dhul ballaarsi iyo gumaad ay ku sameeyaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee markaasi ku dhaqan galbeedka gobolka City hase ahaatee waxa ay ka war heleen duulaan markaas aysan ka filin waxaana loo dhigay cashir lama ilaabaan ah iyada oo laga qabsaday gaadiidkii ugu badnaa kuwa intaas ka badanna laga gubay maxaabiis boqolaal dhaafaysana sidaas oo kale la soo bandhigay wararka laga helayo dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City ee dawlad deegaanka Soomaalida dhanka Itoobiya waxay sheegayaan in mar kale dagaal uu ka bilowday deegaano ka tirsan galbeedka gobolka City kaas oo u dhaxeeya Soomaalida iyo Cafarta dagaalkan ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii Cafarta ay weerar ku soo qaadeen deegaano ka tirsan galbeedka gobolka City waxaana ka dhashay khasaare kala duwan dagaalkan kadib halkaasi ka qarxay wararka intaasi waxay ku darayaan in dagaalka uu maanta xoogiisa ka dhacay goobaha lagu magacaabo dabamara oo sidaas oo kale dhaca galbeedka gobolka City waxaana weli adag xaaladda sidii faahfaahin looga heli lahaa maadaama weli dhawaqa dagaalka halkaasi laga maqlayo dhinacyadana ay markaas hub culus ku adeegsanayaan hase ahaatee wararka madaxa bannaan ee ka imaanaya galbeedka gobolka City waxay ku soo waramayaan in ciidanka Soomaalida oo u diyaar garoobay duulaanka ay Cafarta ku soo qaaday isla markaasna ka warhayay in markaas jidgooyooyin dhowr ah ay u dhigeen sidaasna jab xoogan ay ku gaarsiiyeen isla markaasna ciidanka Cafarta markaas laga qabtay maleeshiyaad dhowr ah oo markaasi baxsad ah sidaas oo kale wararku intaasi waxay ku darayaan in maxaabiistii ugu badnaa markaas ay soo bandhigeen ciidanka Soomaalida isla markaasna guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhaca galbeedka gobolka City Cafarta weerarka soo qaaday dib ayaa loo jibiyay waxaana laga qabsaday fariisimihii marka hore weerarka ay ka soo qaadeen ayuu yiri mid ka mid ah xubnaha saraakiisha ah ee ciidanka Soomaalida oo markaasi la hadlay madasha wararka waxa uu sheegay in duulaanka dulmiga ah maalmihii u dambeeyay ay wadeen ciidanka Cafarta hase ahaatee Soomaalida markaas ay iska caabiyeen sidaas oo kalena dagaal culus ay la galeen ilaha deegaanka waxay noo sheegeen in dagaalka la isku adeegsanayo hub noocyadiisa kala duwan isla markaasna uu jiro khasaare balse aan la cadeyn karin intuu leeyahay Soomaalida ayaa durba markaasi guulo ka gaartay dagaalada sida markaasi laga soo xiganayo dadka deegaanka ah isla markaasi xaqiijiyo guulihii u dambeeyay ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida iyo dhinaca kale ee deegaanka Cafarta Itoobiya ee ku aadan dagaalka marka sidaas oo kale loo eego khasaaraha soo gaaray Cafarta oo la sheegay inuu yahay mid aad u ballaaran dagaalka dhex maraya qowmiyadaha Soomaalida iyo Cafarta Itoobiya ayaa ah mid soo noqnoqday waxaana ku dhintay boqolaal qof oo labada dhinac ah iyo kuwa rayid ah
si kastaba waxaa gebi ahaanba burburay waan horey la iskugu dayay in xal looga gaaro Soomaalida iyo Cafarta kadib waxaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday wadahadal la doonaya in labada dhinac lagu xalliyo. Horaantii sanadkii hore ayay ahayd dagaal sidan oo kale ah marka uu dhex maray Soomaalida iyo Cafarta, taas oo Cafartu ay ku aaminsaneyd in Soomaalida guulo waaweyn ay ka gaari karaan dagaaladii ugu dambeeyay ay la galaan. hase haatee ugu dambeyn waxay dalbadeen waan iyo wadahadal xabad joojin in labada dhinac la dhex dhigo kadib marka Soomaalida oo weerar culus ku soo qaaday isla markaasna u gudubtay dhanka xadka Cafarta ay markaasi Cafarta baqdin xooggan muujisay. Dagaaladii ugu dambeeyana waxaa cad in markaasi ciidanka Soomaalida ay guulo waaweyn markaasi ka gaareen marka loo eego dhulka ballaaran oo dagaaladii ugu dambeeyay ay qabsadeen. Goobaha ay qabsadeen waxaa qayb ka ah halka lagu magacaabo Gobole, Qadaran iyo sidaas oo kale Dabamara, Xoori, xaruntii degmada Caydhidha iyo sidaas oo kale nawaaxiga dan la helay oo dhan waxaa laga xuriyay ciidanka Cafarta sidii markaas wararkii ugu dambeeyay ee soo dhacay sheegayaan. Dhulkan oo ah dhul ballaaran xaddigiisu isla markaasna marka hore Cafarta weerar ay ka soo qaaday ciidanka Soomaalida waxaa u suurto gashay in markaasi guud ahaan ay gacanta ku dhigaan. Dhanka aagga Candhuufa marka loo eego ciidanka Soomaalida ayaa dagaal halkaasi culus oo ka dhacay waxay noqdeen kuwo ku gacan sarreeya marka loo eego. Dan la helay ayay si toos ah guud ahaan ciidanka Soomaalida markaas gacanta ugu dhigeen weerarkii ugu dambeeyay ay markaasi galeen iyaga oo la isku adeegsanayo dagaaladii ugu dambeeyay hubka culus oo markaasi labada dhinac ah. Arrintan waxay sidaas oo kale saameyn ku yeelatay dadkii rayidka ahaa ee horey halkaas ugu dhaqanaa iyada oo markaasi dadkaas ay ahaayeen kuwo u badan beeraley iyo xoolo dhaqato, waxayna isaga barakaceen guud ahaan nawaaxiga dagaalka uu ku dhex maray Soomaalida iyo sidaas oo kale ciidanka Cafarta. Ciidanka Cafarta ayaa duulaankii ugu dambeeyay sida wararka aynu ku helayna waxa ay ku soo qaadeen aagag dhowr ah oo markaas ciidanka Soomaalida ay ku sugnaayeen. hase haatee ciidanka Soomaalida ayaa iska caabiyay oo markaas dagaal culus la galay. Sidaas oo kale ciidanka Soomaalida waxay soo bandhigeen maxaabiis aad u fara badan kuwaas oo gaaraya boqolaal, waxayna sheegeen in markaasi ay ku qabteen dagaaladii ugu dambeeyay ay la galeen Cafarta. Gaar ahaan waxay sheegeen dagaal ka dhacay nawaaxiga dan la helay oo ciidanku ay u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan in maxaabiistii ugu badneed halkaas ay ku qabteen. Sidaas oo kale waxay sheegeen in tiro gaadiid ah oo wateen markaas ay gacanta ku dhigeen. Waxay sheegeen gaadiid kalena intii dagaalka uu socday in la gubay. Waxay sidaas oo kale sheegeen oo ay xaqiijiyeen in dhowaan warbaahinta loo soo bandhigayo tirada maxaabiista ah oo ay gacanta ku dhigeen. Waxayna sheegeen in saraakiil dagaalka hogaaminaysa ay qayb ka yihiin. Soomaalida ayaa sidaas oo kale waxay xaqiijiyeen markaas marka loo eego dagaaladii ugu dambeeyay ee la galeen ciidanka Cafarta in iyagu ay aad kaga gacan sareeyaan. Waxyeelo ayaana jira labada dhinac marka loo eego. hase haatee dagaalka ka dhacay halka lagu magacaabo Damomara waxa uu ahaa dagaal culus oo labada dhinac markaas waxyeelo ay ka soo gaartay. Dagaalkan waxa uu ahaa dagaalkii ugu adkaa ee markaasi labada dhinac dhex mara. Waxa uu qaatay ku dhowaad in ka badan 5 saacadood, waxaana sidaas oo kale dadka deegaanka ay xaqiijiyeen in markaasi labada dhinac ay isku adeegsanayeen hub culus oo dagaalka labada dhinac markaasi isku adeegsanayaan. Sidaas oo kale waxaa la xaqiijiyay in dagaalkan uu ahaa midkii ugu cuslaa dagaalada lagu galay dhammaan. Ugu dambeyn ciidanka Soomaalida waxa u suurto gashay in Dabamara ay gacanta ku dhigeen. Dagaal kale ayay la galeen ciidanka markaasi Cafarta wuxuuna dagaalku uu ka dhacay halka lagu magacaabo Xoori oo ugu dambeyn ciidanka Soomaalida u suurto gashay in gacanta ay ku dhigaan guud ahaan nawaaxiga Xoori iyo dhinaca ku hareeraysan. Waxaa sidaas oo kale ay gacanta ku dhigeen xarunta degmada halka lagu magacaabo Caydhidha oo dagaal culus uu ka dhacay isla markaasna ciidanku ay u suurto gashay in iyagu ay ku gacan sareeyaan. Dagaaladii ugu dambeeyay iyo wararka ku soo kordha daawaday halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa innaga oo mar walba isha ku eegi doona wararka, warbixinada, xogaha iyo barnaamijyaadka ku soo kordha dagaalka u dhaxeeya Soomaalida iyo Cafarta kaasoo si gardarro ah ciidanka Cafarta ay markaasi weerar ugu soo qaadeen dad Soomaaliyeed oo markaasi ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. innaga oo eegi doona hadba waxyaabaha ku soo kordha. Guud ahaan warkii waad kala socotay madasha wararka daawada waa naga intaa waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysaan ku xasuusiya in markaasi subscribe aad noo saarto muuqaalkeena oo aad laag saarto wuxuu naga caawinayaa saaxiibo fara badan sidaada oo kale inay gaaraan wararkii ugu dambeeyay
qaybta hoose ee commentiga noogu reeb oraahdaada kaaga aadan sida aad u aragto Soomaalida guulihii ugu dambeeyay oo ay ka gaareen dagaalkii la galeen ciidanka cafarta mahadsan